بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومركلة برنامج كان تربية عرورته. مقال كان wuxuu ku saabsan yahay su'aalo waalidiin badan ay soo weydiiyeen oo ku saabsan ilmaha markuu 2 sano jiro 2 sano iyo bar jiro 3 sano jiro madaxadayg siyaada ay ku hayaan iyo wax maqal la'aan iyo xanaaq fara badan iyo sidoo kale qalqaalinimo oo maaragtay aad u xanaaqayo. marka koowaad waxa wanaagsan inaan ogaano arrinkan waxa uu sababka ah. waxa horta marka hore war farxad leh ah arrinkan inuusan ilmahaaga u gaar ahayn waalid ahaan ee ay tahay ilmaha adduunka oo dhan markuu 2 sano soo gaaro ilaa uu ka gaarayo 3 sano, ilmaha qaarkood 4 sano ay ku gaaraan, ilmaha qaarkoodna 5 sano ay ku gaaraan, qaar baa ilaa 8 ku gaara. Soomaalida aan arkay caruurtood 8 jir ku gaara. arrinka waxay leeyihiin madaxadayg siyaada ah iyo wax maqal la'aan iyo inay wax walba ma yiraahdaanin ay waalidkana isku soo taagaanin. waa arrin macruufa, baaritaan cilmiyeed lagu sameeyay si scientific oo science-ana loo baaray oo loo daraaseeyay. waxyaabaha marka ugu wacan waxa lagu sheegaa inay tahay ilmuhu inuu doonayo inuu waalidka ka xoroobo. wuxuu raadinayaa xorriyad ah inuu istabiro, inuu isagu wax qabsado, in waxa uu doorto maaha waalidku wuxuu u dooro uu diido. waana wax la fahmi karo. muddada ilmuhu ilaa uu ka dhashay ilaa uu 2 sano ka soo gaarayay wuxuu ku socday go'aanka waalidka ayuu ku socday. markan wuxuu rabaa inuu ku tababarto inuu isagu go'aan qaato oo arrimaha qaarkood isagu xalliyo go'aankeeda iyo taladeedana leeyahay, midda waalidkana uusan ku socon. waana arrin aad u wanaagsan runtii arrinkaasi oo ilmaha mustaqbalka go'aan qaadashadiisa iyo waxyaabo badan ka anfici kara. marka arrinkay ku xiran tahay ilmaha ay isku haysaan waxyaabaha qaarkood aan wax ka dhalan karin ilmaha inaa u ogolaataa fiican. ma garanaysaa arrinkan sababkiisa ugu weyn waa inuu ilmuhu wuxuu doonayaa inuu kaa xoroobo, inuu isagu wax qabsado, inuu talada wax ku yeesho naftiisa iyo danihiisa waxa ah, inuu waxyaabaha qaarkood may ku dhaho, laakiin weli aqoontii iyo waayo aragnimadii ma laha. waxyaabo dani ugu jirto waa waxa laga yaabaa inuu waalidka ku diido amaba inuu sidiisa kaleetaba uu xumaan sameeyo oo maaragtay uu wax aan ma garanaysaa isaga naftiisa dhib u ah uu ku adkaysto oo waalidka kula dagaalamo. qodobkan marka waa qodob aad muhiim u ah, qaabka ilmaha noocaasa loola tacaamulayo iyo sida lagama goyn karo madaxadayga oo 100% lama suulin karo, laakiin wuxuu leeyahay habab loo fududeeyo. waana sheegi doonaa haddii ilaahayd ma hababka. horta marka horeeto waxaa la rabaa ilmaha markii aad wax isku qabsataan ama marxaladaas intuusan gelin ka hor inaad u digto oo u sheegto in waxaasi ayna munaasib ahayn. tan kaleeto haddii arrinku ku saabsan yahay sida dhar la xiranayo, kursi la fariisanayo, waxyaabo noocaas hadduu ku samaysan yahay ilmaha waxaa kala siinaysaa doorashada. xorriyadda shayga ka hooseeya waa ikhtiyaarka inaynu leenahay Joyce aan wax ku kala dooranno, kanaan rabaa kan ma rabo. taa waa inaad horta u ogolaato. مثلا hadduu funaanad iyo shaati labadaas aad rabto inaad mid u geliso, shaatiga rabto inaad u xirto oo yiraahdo intaadan ba u xirin ba waxaad leedahay funaanadan ku xira mise shaatigan ku xira. aad ba arrinka ilmuhu u jecel yihiin. tijaabi. wuxuu ku dhahayaa shaatiga iyo xir ama wuxuu ku dhahayaa funaanada iyo xir. macbaad siinaysaa waad u xiraysaa. isfahan ba halka ka dhalanaya. wax kastana kursigan miyaad fariisanaysaa mise kanaad fariisanaysaa, ma waxaanaad samaynaysaa mise waxaanaad samaynaysaa. markuu arrinka soo wado aad aragto inuu wax rabo inuu isku dhajiyo baad waxaad kaga hortagaysaa inaad siiso waxaan loo yaqaano kala doorashada. taas waa dariiq loo maro oo ilmaha maaragtay lagu fahmo. wixii marka aan dhibaato ka dhalanayn oo mashaakil ku jirin ilmaha waxa wanaagsan sideedaba inaa u ogolaato oo aadan ku qabsan oo taadu aysan maaragtay shaqayn. ogowna ilmo xun ma jiro oo jecel inuu waalidka ka xanaajiyo. muuqaal waxaa jira hadda ka hor aan soo dhignay oo sharaxnay baaris cilmiyeed la sameeyey oo ku saabsan ilmuhu marka uu 1 sano iyo bar jiro, hadda fiiri 2 sano waa uu ka yaryahay, wuxuu ka gilgishaa oo necab yahay inuu dadka waaweyn dareenkooda kiciyo ka xanaajiyo. muuqaalka waa daawateen, wuxuu ku jiraa YouTube-kana waa uu ku jiraa oo bogga tarbiyadda carruurta oo Facebook-gana wuu ku jiraa, labadaba wuu ku jiraa. aniga oo sharaxaya oo ka hadlaya ilmo sanad iyo bar jiray oo si practice kaliya u diidaya inuu qof weyn ka xanaajiyo. ma ay jecla ilmuhu marka waxaan xumaan marka u samayn maayo, waa wax ku abuuran dhaqan xataa kuma xirra. adduunka carruurta jirta oo dhan baa sidaas. Soomaali ha ahaato, caddaan ha ahaato, carab ha ahaato, afrikaan ha ahaato, ciduu raba ha noqdo. 2 sano ilmuhu soo gaaray madaxadayg buu bilaabaya. madaxadaygaasna waxaa ka dhalanaya qalqaalinimo. marka horta tafaahumkaas aad la isticmaalaysaa inaad ilmaha wax kala doorasiiso iyo inaad si degan aad ula hadasho.
arrinta marka ku xigtaa waxa ay tahay qaabkee loola tacaamulaya markuu ilmihii furka tuuro oo waxba maqli waayo maxaad samaynaysaa waxyaabaha marka aad samaynayso waxaa ka mid ah inaad ilmaha dejiso xanaaqiisa iyo inaadan la sii xanaaqin oo dhihin waxaan yaroo xun ka ahoo shalay aan dhalay oo yariiska muxuu isugu kaywaalayaa oo aadan ushaada u qaadan horta dilku waa mamnuuc inaad disho ma aha waayo xal u noqon maayo inaad ku qaylisana xal ma aha inaad canaanatana xal ma aha inaad tiraahdo waa khaldan tahayna xal ma aha waxaa la rabaa inaad tiraahdo dareenkaaga waan fahmayaa waan u jeedaa inaad xanaaqsan tahay maxaa u baahan tahay waxaan iyo waxaan aan u baahanahay waxaa laga yaabaa xataa inuu usan kuuba sheeginba wuxuu u baahan yahay uu xanaaq iyo madaxadayg iska muujiyo laakiin go'aanka kama damaysta adiga ayaa leh waalidkaa leh guriga waqtiga la seexanayo waalidkaa leh waqtiga cuntada la cunayo waalidka iska leh waqtiga la baxayo go'aankeeda waalidka iska leh ilmuhu siduu u dhaqmaayana waalidka iska leh innaga ilmaha inta ka badinno inaynu xumaanta u ogolaano buu gebigiisuba wuxuu soo baxaa maaragtay ilmo aan xumaan waxaan ahaynba aan samaynayn marka horta inaad u talada leedahay ogsoonow haddii uu xanaaqo oo furka tuurana isku day inaad dejiso dareenkiisa fahamto adigoo aan dilin inaad xoogaa ka yarjeensato caburka iyo culayska aa ka qaado marxaladaha noocaana ilmuhu markuu aad u xanaaqo oo qaracmo oo ooyo oo wax ku dhago ganaax lama saari karo lama rabo waqtiga in ganaax lagula orto waa waqtigii dejinta inaad dejisaa la rabaa haddii uu ku maqli waayo si tartiiba uga dhaqaaq adoo maaragtay dusha ka eegaya isagaa tartiibtiisa isaga xasilaya waxaad kaleeto ku oran kartaa orod qolkaaga gal sariirtaada jiifso xanaaqa iska soo bi xoog u neefso xataa taa waan ku tijaabiyey caruurta ma xanaaqsan tahay haa xoog u neefso naqaska aad xoog u qaado xanaaqu waa uu kaa ba'aya inuu ku maqlaa dhici karto oo sameeyo inuu kaa diidaa dhici karta waxba culays ha isku saarin arrinkaa hana ka xanaaqin oo xanaaqa ka muujin waayo ilmaha marka uu laba jirka madaxadayga iyo wax maqal la'aanta ku bilaabo waxaa hadba fududeeya waalidka haddii waalidku arrinka ku cusleeyo ilmaha ku dilo ilmo xun u arko oo dhibaato ka sameeyo waxaa laga yaabaa ilmahaas ilaa 8 jir inuu ku gaaro hadhowna carruurta kale kaa dilo qaniino mar walbana uu neerfoos yahay waa in faham aad u muujiso ogaato arrinkan inuu arrin dabiiciya oo ilmuhu iska leeyahay ay tahay si degan inaad ula dhaqanto inaad wax kala dooransiiso inaad tartiib u bahalkeyso qaababkaa isticmaal waxaa kuu soo haray arrinkii ganaaxa waxaad isticmaali kartaa marka aad aragto ilmuhu inuu soo wado madaxadaygii kugu soo wado ayaa waxa aad samaynaysaa waad u digaysaa waxaad leedahay sida saxda ah waa sidanaad samaynaysaa inaad guriga adigu ka amarka taagleedisaad u sheegaysaa haddii aad diidana waan ku ganaaxaya markaas haddii uu wixii ku dhaqaaqo oo sameeyo ganaaxi baad saaraysaa ilmaha 2 sano jiray 2 daqiiqo ilmaha 3 sano jiray 3 daqiiqo ganaaxu marka laftigiisu nidaam buu leeyahay ilmaha 2 jiray si ganaax loo saaraa way adagta anu sanad iyo bar xataa ilmo waa ugu bilaabay ganaax waana fududahay marka goor hore u bilowdo 1 sano iyo bar ganaax u bilowdo markuu xumaan sameeyo way ku sahlanaanaysaa hadhow markuu 2 jirka yahay inaad madaxadeygii aad ka bi'iso waxa laga yaabaa inuu ganaaxa laftigiisa diido oo ka xanaaqo oo dagaal ka sameeyo waxaad marka samaynaysaa la hadli maysid oo la murmaysid oo la sheekaysan maysid haddaad amarkii bixisay haddaa wixiis ku noqoto ama samayso waan ku ganaaxaya waad qabanaysaa gacanta meeshii ganaaxaad geynaysaa mar kasta uu ka soo dhaqaaqana adoo aan la hadal baad gacanta qabanaysaa waad ku celinaysaa wuu yaabi saan uu kuu eegi marar wuxuu jecel yahay inuu guriga kugula dhex ordo ha ka yeelin tartiib ka yarar hadduu cararo isagoo dagan soo qabo dhab soo si meeshii ganaaxa saar 2 daqiiqo markuu dhamaysto jilbaha dhigo la fariiso waxaad tiraahdaa maxaan kugu ganaaxay hadalka u toosi wixii lagu ganaaxay iyo xumaantii uu sameeyay sheeg kadibna waxaad tiraahdaa hab isii aabe ama hab isii hooyo macsi dhunko kadibna maaragtay raalli ahow igu dheh tartiibtaas baa marka ilmaha ku wadaysaa arrimaha kaleeto oo waalidiintu ay soo weydiiyeen waxaa ka mid ah ilmaha sidee mirta looga goyn karaa horta ilmaha markuu 6 bilood 7 bilood soo gaaro oo raashinkaba loo bilaabo waa in mirta laga jaro ilmahaasi 12 saac cunto la'aan wuu hurdi karaa habeenkii hadduu kugu soo kaco oo ooyo oo mirtii rabo u sheeg si degan ugu sheeg waxaad tiraahdaa caana ma jiraan lama cabeeyo markii hurdada laga soo kaco berisi wax baa la cabaya 2-3 jeer ugu celi inta ka dambaysa ka aamus hadduu ooyo soo qabo dhabarka u yar salsalaax u tag sariirtiisa ugu tag oohinta ha ku dayicin laakiin go'aan qaado cad oo inaadan ku celin shaygii mirta ahaasiin naaskana saas oo kaleeto baa looga goyn karaa ilmaha oo wax dhiba ma laha marka waa inuu kuba gaaro mirta sanad maaha 2 sano inuu ku gaaro ma aha masaasada inuu 2 sano ku gaaro maaha ilmaha Soomaalida ilmo 3 sano jiro masaasad nuugaayad arkaysaa ilmuhu hadduu 2 sano soo gaaro koobka si fiican buu u qabsan karaa 1 sano iyo bar markuu jiro waa inaa koobka qabashadiisa tababarkiisa ku bilowdo koob dhigle marka horeeta u soo gad mid dabool u soo gado meel yar laga nuuga leh adigu inuu xoroobo
oo gacantaada ka maarmo oo masaasadatan ka maarmo carabka iyo bushimaha ka dilaysa waa inaad ku tala gasho xafaayadana sidaas oo kaleeto 2 sano ilmaha waa kaga jari kartaa waa kaga goyn kartaa tan kaleeto arrinka muhiimka waxa weeye aabbayaashu waa inay ka qayb qaataan korriimada ilmaha hooyo kaligeed kuma ay filla haddaad doonayso ilmuhu inuu kaa dayacmo hooyada kaligeed u daa adiguna meelahaagaas iska soo warwareeg laakiin aabbuhu waa inuu ka qayb qaato mana aha inuu jabbaare iyo ilmaha sidii booliskii hooyooyinku ay ku bajiyaano markuu xumaan sameeyo taleefon loo diro hooyadu aabbuhu markuu guriga ka maqan yahay waa inay iyadu xalliso labada waalid kan ilmaha la tacaamulaya haddii hooyada uu ilmuhu ay rabto inay ganaaxdo oo wax ka maqli waayo ma aha aabbaha sidii booliskii inay u yeerto waayo nafteeda waxay ku samaynaysaa ixtiraam darro waxay tusaysaa iyada laftigeedu inay caruur tahay oo aysan awood lahayn waa inay karti iyo awood laftigeedu muujiso oo ilmaha markaas si qawiya ay u tarbiyadayso oo sharciya oo nadaama aabbuhuna ma aha inuu ku qabsado oo faragashado in la isku qabsado maaha waalidka korriimada waa inay meel uga soo wada jeedaan haddii aabbuhu ilmaha ganaaxayo ama la tacaamulayo hooyadu waa inay iska dhagatirto hadduu ku soo ooyo waa inay tirahdo arrintan adii aabbahaaba idiin dhexaysa aabbuhu sidoo kaleeto waa inuu yidhahdo arrintan adii hooya idiin dhexaysa aniga waxba igama khuseeyaanin idinka dhammaysta hawshiin waa inuu yidhaahdo waana in waalidku kan kaleeto uu ku saacido wixii haddii ganaaxa oo kaleeto xadka uu ka baxo waa inuu ku saacido waa inuu la soo qabto waa inuu saaro waa inuu arko ilmuhu in go'aana kan yahay go'aan hooyada iyo aabbuhu ay u dhan yihiin ganaaxii qaabkaasaa marka ilmaha qalqaaliga ah amase maaragtay madaxa adag loola tacaamulaa si xigmadaysan oo tartiiba ilmahana waa inaad mar walba fuurba tahay oo la socoto dareenkiisa waxyaabaha uu ka kacayo waana inaad joycekaa siiso wax kala doorasiiso kan miyaarta mise kan saan caqabadaasba laysula aadin wax laysku qabsado 12 daqiiqo baan maanta ku gabagabaynaya haddii ilaa idmo insha allah wixii su'aalo ahna whatsapp groupka ayaad nagu weydiin kartaan waxaan sidoo kaleeto dhammaan ka codsanayaa dadka waalidiinta ah oo bogga ku xiran in ay maaragtay ay subscribe gareeyaaniin youtube channelka waayo muuqaalo dhaadheer oo nus saaca baanu hadda kadib soo gelin doonaa oo maaragtay aad u fara badan iyo kuwo baaris cilmiyeedii ah oo badan khayr ayaan dhammaantiin idiin rajaynaya waana idin salaamaya insha allah waxaan idin leeyahay sabr baa tarbiyaddu u baahan tahay ilmaha loo saburo ha la isdejiyo waalid caafimaad qaba baa ilmo caafimaad qaba soo saara dhammaantiinna waa mahadsantiin si aad si toosa ugu hesho muuqaaladan iyo kuwa la mid ah taabo oo riiq halka gambaleelka ku yaalla ama ay ku qoran tahay subscribe ee hoose dhinaca midigta aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin